السلام عليكم والله كحرن جنالك رشك حديك waxaan idin haynaa qiso aad u cajiib ah u baahan in lagu cibraqaato. qisadana waxay ku dhacday nin aad u cibaado badan oo alla ka cabsi badan. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa gurigiisa soo weeraray booliis ku hubeysan qoryaasha noocyada kala duwan. ninkii ayaa loo sheegay in uu dilay nin loona haysto dilkii ninkaasi, balse ninkaasi uusan wax war u hayn. raggii soo eedeeyay iyo booliistaba ayna ninkii la dilay magaciisa aqoon iyo kan dilayba, balse waxaa dhacday ninkii in la soo kaxiyo xabsiga loo taxaabo. waxaase lagu xukumay muddo 15 sano inuu xabsi ahaado. ninkii mar alla markii xabsiga la keenay ayuu wuxuu bilaabay inuu Ilaahay xabsigan ka saaro. mar waliba uu ducaysan jiray, 5 salaadna mayse ka tagi jirin. sanad walba uu soomi jiray, cibaado Ilaahay aad buu ugu dadaali jiray. mar alla markii ay 15 sano u dhamaatay ay la rabay in xabsiga laga saaro, ayaa qofkii laga dilay dadkii waxay sheegeen in ninkii loo qisaaso. mar alla markii xabsiga laga soo saaray loo soo kaxeeyay dhanka dadka lagu dilo ama lagu toogto. goobtii toogashada ayaa la keenay, waxaana lagu sameeyay waxaana qoorta loo geliyay maradii dadka loo gelin jiray ee toogashada. indhihii ayaa laga xiray, waxaana la soo saaray warqadii ay ku qorneed dambiilaha. waxayna bilaabeen inay qodobadii ku qornayeen ay akhriyaan, balse maxaa dhacay? ninkii la dulmiyay ayuu wuxuu yiri, Ilaahow waan la dulmiyay, Ilaahow adaa qaadira, Ilaahow ii gargaar ayuu yiraahday. balse maxaa dhacay? kii dhaalimka ahaa qofka dilay ayuu isla markiiba dhawaaqay, wuxuu yiraahday, Ilaahow anaa dilay ninkaas yaa la dilin, aniga ayaa dilay, ninka bilaa dambi weeye. subxaanallah. ninkii sidaas ayuu ku badbaaday. haddaba walaalayaal, qisadan waxaynu ku faa'iideynaa in dulmiga la iska ilaaliyo. goor allaala goortii Ilaahay ka dhigay ayuu dulmigu soo bixi doonaa. ha dulmina walaalka. walaal, haddii qisadan ay ku soo jiidatay, waxaa si naxariis leh kaga codsanaya channelka Rashka Xidig inaad subscribe saartid, gambaleelkana furtid si aan u soo gudbino qisooyinka noocan oo kale ah. waad ku mahadsantihiin daawashadiini.